hay-adda SWC ayaa maanta deeq isugu jirta cunto, dharka haweenku xirtaan iyo agab lagu jiifto waxa ay gaarsiisay haweenka ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Markii xabsiga la tagay waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiinta SWC ka socotay ee deeqdan maanta waday Hormuud Foundation ee u wakiilatay qaybinteeda taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. maanta waxaa booqasho noogu yimid xabsiga dhexe ee Xamar ururka badbaadada haweenka iyo caruurta waxay noo wadeen iyo waxayna dhihilaayeen iyo salaantay noo wadeen intaba aan jecelnahay inaan afkooda ay idinkaga sheegaan ayaa halkaan ila fadhiya. waa salaamantiin soo dhawaada. Aamina Xaaji ayaa hormuud u ah oo wada ayadaan rabnaa inaan ka sugno wixii ay maantay xabsiga dhexe booqashada ay ku yimaadeen iyo waxay u wadeen. sidoo kale waxa ayna hadashay Aamina Xaaji cilmi hogaanka SWC waxaana ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in sanadkii shanaad ee goobtan deeqdan oo kale soo gaarsiiyaan markasta oo sanadku gaaro in soonku soo dhawaado. waxaan ugu talagalnay mar haddii soonkii dhow yahay oo soonku nagu soo socdo, mar haddii dumar dhalinyaro aad tihiin, mar haddaad halkan joogtaan baahidiina waa ognahay annagoo guryaha joogna. maxaa yeelay dumarka iyo ragga ilaahay biological waa u kala gediyey. baahida isku baahina waa qabaan, kala baahiyana waa qabaan. waxaa jira baahi adduunku ay qabtaan oo nimanka xabsiga ku xiran aysan qabin oo dumar ahaan aad u qabtaan. wixii ogaa hooyooyinku ogaa ama mas'uuliyiinta ogaa waa annaka oo garanayay. annaga marka waxaan go'aansanay sanad walba bal wixii tabarteedu noqoto inaan idin soo gaarno, idin soo salaanno, inaan idin sheegno in aan idin jecelnaho, idin rabno dadkayga aad tihiin. dadka qof isbitaal buu ku jira, qof gaal shir ku jira, qof xafiis buu ka shaqeynaya, qof dariiq buu maraya, waa safar, qof waa xanuunsan yahay, qof waa la duugay, qof waa dhalanaya. intaas bulshada ka kooban. marka qof walba meeshiisa wixii aan ku tari karno inaan ku tarno iska warqabno. annagu mas'uuliyadda haweenkan sidnaa waxaan qaadanay marka ilaahayna abuuray kadibna dhibaatadu timid oo dalku u burburay oo dawladdii dhexe ay ka baaba'day. sanado hore oo badan xabsiga dhexe waa dhibaataysanaa ma jirin nidaamkan hadda maanta ka jira. dawlad waxaan ahayn allah wax bixin kara, laakiin waxaan dawlad ahayn oo nidaam dhisi kartaa ma jirto. annaguna idin ma aanan imaan karin, adduunkuna ma aynan heli karin noloshaada haysataan. hadiyadan waxaa noo soo dhiibtay foundationka la yidhaaho Hormuud Foundation. Hormuud baa noo soo dhiibtay. waxaan adinkaan idin siinaynaa, idin wadnaa. waxaan u wadnaa gabdhaha ku jira isbitaalka dhimirka oo iyaguna dhimirka ka xabisan, dhimirkay ka xabisan yihiin. allah u fasaxo. dhanka kale dadka miyirka naafada ka ah ee xarunta dhimirka ee Xabeeb ku jira waxaa la gaarsiiyay dhar, cunto iyo sidoo kale agabka lagu jiifto si iyaguna ay qayb uga qaataan dadkaas iyo horumarin in loogu sameeyo xarunta lagu xanaaneeyo marka la eego. Aamina Xaaji cilmi hogaanka SWC iyo mas'uuliyiin kale ayaa goobtan iyana ka hadlay. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.